السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني عبدك من أمتك ناسيتي بيدك عدل في غداؤكم هذا في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استكبرت به علمك عند غيبك أنت قرآن ربيع أعوذ بالشيطان الرجيم. اللهم إني عبدك من أمتك ناسيتي بيدك عدل في غداؤكم هذا في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استكبرت به علمك عند غيرك أن تجعل قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب همي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي ولم يتأخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بشرتك من عندك تخبر الفرح إلى قلبي كما بشرتك نبيك يعقوب بولده يوسف عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت العالم بسري وجهري وأنت العالم به صدري ويسر لي أمري ويجبر لي كسري ويسر لي عسري ولا تجعلني أنت حيور في أمري. بعد انت دعاء ربي هينو أقبله هانينو وحفديو waxaan halkan aan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan doonayaa soo jeeday in yar oo waana ah oo ku socota hooyooyinka Soomaaliyeed ee ilmaha laga qaatay ee jooga wadamada qurbaha Afrika meesha doonta ba ahaatee weyneeda ka maqan yahay qalbigeedu dhaawacan yahay tala yaro ku socoto oo ah waxa qalbigeedu ku dhayi lahayd iyo waxyaalo looga baahan yahay inay samayso iyo waxyaalo looga baahan yahay inaanay dhagu dhigin. horta awalan waxaan kula taranayaa walaashay Soomaaliyeed samirka salaada ilaahay bay idin sabri wa salaad ila lahu ma khashay. taas wata talabaad kale waxaan kula taranayaa hadhageysanin dadka hadalladooda dadka xun dadka wanaagsan ee damqanaya qalbiyada iyo qulubada leh wanaagsan dareemaya dareenka hooyanimo kusbad garanaya ku taageeraya ama ku ducaynaya kula damqanaya uma hadalladooda dhageyso una duceey si kugu ducaynayaan kuwa kalena dhagawdhig yaan ku dhaaway. dadkeena Soomaaliyeed wax u badan yihiin inay dadka dhaliilaan iyaguna xitaa ku aqooni. taas wata tan kale waxaan kula talinayaa walaashay waxaan kilibkan soo duubay Faadimo Buraanbur aan kilibka caruurteeda inankeeda iyo inaanteeda iyo kuwa aanay arkin kulli. horta ilaahay waxaan uga baryayaa iyada iyo aniga iyo dhammaan hooyo kasta oo damqanaysa mid awlaad la'aan hayso ilaahay awlaad baariyaha siiyo. dhammaan muslimiinta oo ducaynaya waxaan leeyahay qof kasta muraadkiisa bilaa macsiya ilaahay ha siiyo ka awlaad haysta awlaadiisii guur la jeclaysanay ilaahay guur xalaal ha siiyo oo ha u sakhiro. kuwa aan awlaad haysan ilaahay awlaad baariyaha ha siiyo. kuwa aan sawaaj haysan saalixiin ha siiyo. kuwa haysta rabbi ha u barakeeyo. inta haysata ilaahay kama tuso cadowga inta haystaana rabbi cadowga ha inoogu soo celiyo. taas waa salaanta guud. taladan walaashay si aan walaalahay siinay wax weeyaan oo ugu horeysa Faadimo Buraanbur iyo walaashay Nimco wax weeyaan. horta kow ishu walaalo waa wax jira mana aha sideen inagu u anaqaano oo keliya taasho keliya nacayb keliya kama dhacdo. qofku nacayb keliya kama dhacdo. qofku jecel bay ka dhici kartaa qofku nacayb bay ka dhici kartaa. adiga naftalkaaga adiga naftaada ilayn kara. ishuna waa waxa keliya ee qadarta ka soo hordheeraysa ka horeysa. waa waxa keliya dad badan ay godadka ugu jiraan. waa waxa keliya ee Allah subxaanahu wa ta'aala inooga digay uu nuri qul maasha Allah. markasta diinteenu way macaan tahay waana kaamil oo way dhammaystiran tahay laakiin inaga ayaa bini aadan oo daciifa oo shaydaanku ina dufsanaya oo
inoo adkeynaya culays inooga dhigaya. waayo diinteena xusni muslimku waa xirsi xirka qofka muslimka ah. xirsi xirka qofka muslimka ah wayaan xusni muslimku waa intaasoo boqol oo duco oo wax kasta iska daa wax kale, wax kasta iyo tallaabo kastood qaadayso ducaad ku ducaysanaysid baa jirta oo lagu odhanaya mar kasta allah subxaana watacaala uu ku farayo. taas horta waa taa. marka waxaan kula talinaya walaalo hooyooyinka Soomaaliyeed inaad ilmihiina xijaab xidhaan. maxaad ku xijaab xidhi kartaa? adkaaro masaa wa sabaax inaad laasintid, oo welibana marka ay ama il jirto ama wax kale jiro waxa fiican inaad akhrisatid inta aanay dhicin salaada subax. markaad qiyaamu leylka u kacdo inaad bilowdo ood akhrisato adkaaro sabaaxda dhamayso intaan salaada subax la soo gaarin, iyo marka aad salaadka casir tukato inaad bilowdo adkaaro masaa inta aan salaadka maqrib la gaarin aad dhamaysid aad laasintid. wixii hore ku hayayna siyar buu kaaga tegayaa, dhib kale cusubna kuma soo gaarayso. waayo waxaad tahay qof xijaaban, xijaab xiran. allah subxaana watacaala shar kasta uu kaa qabanayo. taas waa taa. ta kale kula taliya weeyaan suuratulbaqara inaad laasintid. suuratulbaqara haddii aanad aqoon qur-aanka ama aanad xifdsanayn qur-aanka, dhegayso isku day inaad la akhridid. isku day inaad saacad ama 2 saacadood ama saacad iyo bar ama waxay kugu qaadataba aad fariisatid, kitaabka soo qaadatid, akhridid. weliba uu ka allah subxaana watacaala uu ka jecel yahay, waanu ka ajar badan yahay, waanu ka faraj badan yahay qofka isagoo qur-aanka xifdisan, qur-aanka akhriya, qofka isagoo aan xifdisanan qur-aanka jeclaada. way kala darajo sarreeyaan allah agtiisa. waxaad ka helaysaa darajo, hanuun, qalbi dhayid, wax walba. taas waa taa walaashay ulfaal baan aad ugu dardaaraya inay taa samayso. mandabi carruurtaaduna garanayeen iyaguna ay sameeyaan salaatu duxaa oo kaleeto inaad markasta markaad ayadana akhrisato ku ducaysato ducooyinka. allahumma mustacaan 3 duco waa inaan walaashay iyo daaciyada ay la soo wadaagta. allah jannatul firdaws ha ka waraabiyo, kuwa jannada ku kulmo walaalo ku noqda san diinta iyo dikriga iskugu baranay allah ka dhige. iyo duco kaloo iyadana sheekh badbaadaan ka dhigaystay baan doonaya inaad la wadaago. taas astadacwatukum allahu alladii astadaacu wadadacwatu wadadaacu allahuma taxfadhum bima taxfadu biha lcibaadaka saalixiin wajacalnaa min bayna yadayhi saddan wamin khalfi saddan faakhshaynahum fahum laa yubsiruun. 3 duco. ducada kalena waxa weeyaan duco aad qaali u ah taan waxay odhanaysaa اللهم إني أسألك بشرتك من عندك تخول الفرح إلى قلبي كما بشرتك نبيك يعقوب بولده يوسف عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت العالم بالسر وجهري وأنت العالم به ضيق به صدري ويسر لي أمري ويجبر لي كسري ويسر لي عسري ولا تجعلني أنت حيور في أمري. قبل شيء إلهي نحن كاكبرين وكوفر ذايو manaha waxaan iska kaaleeyahay waa waxaan soo arkay natiijadooda tijaabiyey. horta maasha allah tabaaraka allah suuratul baqarada iyo quraanka ina mar walba isbedesho. waliba suuratul baqara haddaad laasintid adkaar masaadi sabaxdani aad ilaalisid walaahi waxaad arkaysaa dadkii shalay ku taagnaa oo isbedelaya oo ku istaagaya maanta halkaa taagan tahay hal mar noloshu ay saa isku bedesho وترى كل يوم نرك ميالين سامي نقنين أو إلهي تيكو أتكيدي كو تاجني نحرس كو كدي دولتي يجي العنا طلع هذا عليا المهن عليا كركذا بورو سجودنا إن بدنا تكون عايزة تقول بنا صلي النبي يحاول قلدنا آد بتصته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا اللهم صل وسلم على من النبي محمد سلي نبي ونعيد سكال دوان ودان ونوجهي واحد كبار رسم كويت كتاجنت وعبادة ده لكن يعني لازم مركز تنا طلبات والقناعة نية هذا كيلي إن هيلي سد وحكست دي لهي ويدي ستي الله سبحانه وتعالى وبدله ربنا أي من قنتها وهرن قدر لهم ما شاء فعل لكن وحكا هذا ليا هدي مثلا إله قلتها هدي وحكست هاي بد إلهي بكتاب كيسينو وشوفوا
baryada addoonkaygu waxay baajisaa iska daa bale bixtaa qadartay baajisaa bal qadarta waxa baajisa baryada addoonkayga oo Allah subxaanahu wa tacaala tusaale kale haddaan soo qaadano nabiyullaahi muuse gabadhii u imanaysay caaqid tahay yacni ugu alla ku dhahday waxay ka mid tahay dumarka aanan awlaado ugu talagelin ee weydiinaysay dhowrka jeer ku noqnoqotay oo alla u weydiiyey nabigu calayhi salaam guri gabadhani ma aha kuwa dhasha loogu deeqay waxa weeyaan qof aan dhal lahayn ama aanan awlaad ugu talagelin markay baryadii Allah ka daali weyday rasuulkii ay dhowr jeer kusoo noqnoqotay kadib Allah subxaanahu wa tacaala qiyaamu leylka salaatu duxada iyo salaadaha xilli kastaba ilaahay baryaysay oo Allah subxaanahu wa tacaala siiyey tan nabiyullaahi muuse calayhi salaam uu arkay bacda sanad iyadoo ilmo wadata guriyaa dhalay ilmahan anaa dhalay dadna Allah uu weydiiyey nabiyullaahi muuse alla muxuu ugu jawaabay baryada addoonkaygu waxay bedeshaa qadarta waayo waanu naxariista ilaahayna aayad kale uu nagula hadlay wuxuu yiri addoonka naxariisteedu way degdeg badan tahay addoonkaygana haddii kaa weydiiyaan nabiyullaahi allah waxaad ku tiraahdaa aniguu idin dhow yahay waanu idin maqli og yahay marka taan kuula dardaarmaya walaasha waa intaas insha allahna waxaan ilaahay kaaga baryayaa adiga iyo aniga iyo dhammaantiinba ilaahay intay naga maqanahay noo soo ururiyo qof kastoo muraadkiisa bilaa macsiya wadankeenana rabbi nabad iyo barwaaqo ha ka dhigo meel kasta kii baahay haysiyo kii nabadara haysaba insha allah dhammaan ummadda muslimiinta rabbi ha cisiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idin salaamaya walaalahay shaarka iyo laagta u badiya si ay u aragto gaadho walaashii fariintu iyo walaalahayga kale ula jeedaba anu badanka baan soo geliyo YouTube-ka wax laakiin marka aan arko waxaan isdhaahdaa in la wadaagtid waxyaalaha adigaba kaa badbaadiyay waxyaalo badan oo hooyooyinka Soomaaliyeed ilmaha laga qaatay dib ay ku jiraan ay arkaan ay la kulmaan adiga kaa badbaadiyay quraanka iyo digriga faraha badan leh iyagana la wadaag ama markay wax kugu adkaadeen akhrisatay ilaahay kugu fududeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.